waxaan saluugnay habka wadanka iyagu u socdo baan saluugnay wadanka gacan loogu jira male tala gacan loogu jirta male wadankii balaayo iyo shisheeye yuu gacan u galay inaan wadanka iyaga u kacno oo wadanka iyaga dhacsano oo wadanka iyaga dhisano baan isugu nimid meeshaan maxamed cabdullaahi maanta annaga xasumanay laakiin kharajkuu naga bixiyay annaga nin walba oo musharaxa waa u tagaynaa oo isbedel doona waa u tagaynaa wiilashu waa loo siiyey nin gaara ma wadano haweenka baarlamaanka nin gaara ma wadano wiilasha dhan waa loo simayey cabdullaahi wuuna xasunay waa soo dhawaynaynaa cabdullaahi oo haweenku waa kuwa hortaaday fadhiya awalba markii hore haweenka intii yaraydeed xukunka haysay haweenku waa ku jeclaaye waad qadarin jirtay waad qiimayn jirtay qof aan ku jeclay halkaas ma fadhiyo haweenku qadarin bay ku hayaan maantana waxay kugu yimaadeen waxay kugu yimaadeen si kal iyo laaba haweenkaan intooda badan derigaa tuuntaa qabtay oo aad dagaalka ku jirtay haweenkii caanaha iyo biyaha iyo badarka kula daba taagnaa weeye haweenka meeshaa jooga waxaan ku leenahay haddii ilaahay qadaro oo aad talada wadanka qabato oo aad madaxweyne noqoto waxaan kaa codsanaynaa inaad bedesho xaalka Soomaaliya maanta ka taagan oo Soomaaliya gacantigeeda ku soo celiso Soomaaliya gacanteeda ka baxday inaad gacanteeda ku soo celiso dhul islaameed baa naloo ka taliya ummado shisheeyaan noo taliya waxaad naga ballan qaadaysaa haddaad xukunka qabato Soomaaliya gacanteeda inaad noo soo celiso waa mahadsantahay